الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu maanta qaadan doonaa hordhaca iyo gogoldhigga maadada usuul fiqiga oo kitaabka u horeeya muqararka ahi uu yahay al-usul min cilmi al-usul الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. kitaabka waxaa qoray caalimka weynaa culimada casrigan ka mid ahaa waayo sheekha محمد بن صالح العثيمين magaciisu waa saad maqasheen محمد بن صالح العثيمين kunyadiisana waxaa la odhan jiray أبو عبد الله أبو عبد الله wuxuu dhashay 1374 marka ahay taariikhda hijrigu waxaana uu ku dhashay magaalada Cunayza oo ka mid ah mantiqada al-Qasim oo ku taala najd al-mamlaka waxaanu geeriyooday sheekhu 1421 marka ahay taariikhda hijrigu wuxuu sheekhu caan ku ahaa tadriiska oo dad fara badan ayuu wuxu dhigay saadkiisa al-jaamic al-kabiir ee ku yaalay magaaladiisa waxaanu cilmiga ka qaatay culimo badan oo sheekhiisa koobaad uu ahaa sheekh cabdiraxmaan ibn naasir as-sicdi raximah allahu tacaala mutafanin buu ahaa sheekhu luqada fiqiga usuul fiqiga caqiidada intabana duruus ayuu ku leeyahay musajala oo duuban qaar badan oo ka midana la tafriiqiyey oo kutub laga dhigay maadadan usuul fiqiga kutubtiisa kitaabkan baa ka mid ah al-usul min cilmi al-usul waxaa kaloo uu ku leeyahay sharax kitaabka laftiisa sharaxay sheekhu waxaa kaloo uu sharaxay nadm al-waraqaadka cimriiti isna uu sharaxay waxaa kaloo uu sharaxay kitaabka mukhtasarka isaguna usuul fiqiga sheekh xambaligi qoray laakiin ibnu najaar mukhtasarkiisa laakiin waxaan u malaynayaa allahu aclam inaanu dhamaystirnayn waayo dhowr iyo 90kii baan mar isku dayay inaan dhegeysto canjaladihiisoo dhamaystiran maan helin inta hore ayuun baan arkay sheekh maxamed bin saalih al-Uthaymin raximah allahu tacaala kitaabkan al-usul min cilmi al-usul wuxuu ugu talagalay inuu muqarar u noqdo ardayda dhigta thanawiyaadka ama dugsiyada sare waliba thalith thanawi oo ah galaaska u dambeeya dugsiga sare kitaabkiisanina waxaan odhan karnaa tamayaza biamrayn laba arrimood oo ku soocmay baa jira alamru awal waxa weeye suhuulat alcibaara waa inay cibaaraadkiisa iyo kelimaadkiisu aada u sahlan yihiin luqa sahla ayaa sheekhu sida uu caanka ku yahay markuu hadlay markuu wax qorayaba kitaabkan uu ku qoray arrinka labaadna waxa weeye waa kathratu al-amthila min al-qur'aani was-sunna hadii jaraale tusaalaha lagu fahmaa masaa'ilka wabilmithaali yattadixu al-maqaal marka mas'ale kasta uu sheegay hadii jaraale wuxuu u sheegayaa tusaale qur'aanku tusaale uga keenayaa sunnaha wa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu tusaale uga keenaya waxaa kaloo isticmaalay kitaabkiisa dhexdiisa waxaa loo yaqaano bayaan al-ixtiraazaat markuu sheego kelima fi qaacida aw fi tacriif aw fi xukmin inta badan wuxuu sheegayaa kelmaddaasi waxay tacriifka ka saarayso waa isaynu naqaano tacaariifta waxaa shardu ay noqoto jaamica maanica yani jaamica limacaani almucaraf maanica min dukhuuli gayrihi fiihi tacriifku waa inu noqdo mid kaa la tacriifinayo la qeexayo macaanidiisii oo dhan kulminaya wax ka mid aanu dabadda uga baxsanayn maanicna tacriifku waa inu noqdo oo tacriifka wax kale oo kaa la tacriifinayo ka baxsan inuu soo galo waa inuu diidayo marka ixtiraazaadku waxa weeyaan xagga maanicnimada waxyaabaha uu mancinayo ereygan uu ka saarayo tacriifka sheekhu aada u caddeeya dadka talabatul cilmigana marka hore usul fiqh bilowga ay ku yihiin waxa laga yaabaa ixtiraazaadku inay ku adkaado laakiin haddii loo yaro fiirsado oo wax iska sahlan imika haddaad tidhaahdo tusaale ahaan
ra'aytu rajulan waxaan arkay nin haddii lagu dhaahdo weedha muxtarazaadkeeda ama waxa ay saarayso waxay meesha soo gelinaysaa dee way iska caddahay waa inay aragti dhacday cidda la arkayna ninuu yahay maxay saaraysaa marka ra'aytu la yidhi waxaa dee meesha ka baxaya samaac iyo dee wixii kale ru'yo aan ahayn ayaa meesha ka baxaya rajulan marka la yidhina wixii aan rajul ahayn ixtiraaska lagu sheegaya waa intaas weeye sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacala markaa ixtiraazaadka aad buu u badiyey kitaabkiisan laba qiso oo la xidhiidha oo nolosha nagu soo maray ayaan talabatu cilmiga xusuusinaya labaduba kolley cibray leeyihin qisada koowaad waxay tahay waxaan filayaa 1989 ama 90 labadaa ka ahayd ma xusuusto ayaa annaga oo talabatu cilmiya oo sheekha wax noo dhiga waxaa la odhan jiray sheekh cabdulghani abu saalex oo reer burcu jooga hadda markaas waxaanu joognay mukhayamaadkii laaji'iinta ee dulcad da-da iyaduna kolley way yaryarayd kutub may jirin oo kutubta sida loo helaa aad iyo aad bay u adkayd waxaa deegaankaasi nagu soo maray nin sita nuskho ka mida kitaabka alusul min cilmi lusul sheekh intuu ka qaato ka amaanaystay ayuu habeen ku soo jeedo kitaabka gebigiisa buugu ku wareejiyey waxay tusinaysaa nudrat lkutub fi daka alwaqt kutubtu say u yarayd waqtigaas waxaa kaloo ay tusinaysaa culuwu himmati mucallimina mucallimka iyagaa himmadiisu u sarraysay in kitaabka maadaama aanu kitaab ahaan u helahayn gebigiisaba buugu ku qortayba oo hal habeenna gebigiisaba uu qortay ninkii kitaabka lahaana kitaabkiisu u celiyey maanta haddaynu garab dhigno xaalku sidaa aad buu uga duwan yahay kutubtii waa mutawafir oo meel walba way taallaa maktabadaha ay taallaa nadka ayay ku jirtaa maktabadaha elektroniga ayay ka buuxdaa meel walba way taallaa laakiin waxaa aada u hooseysa himada dadka kutubtaa himadii lagu akrin lahaa lagu dhigan lahaa lagu akrin lahaa lagaga faa'iidaysan lahaa ayaan maanta jirin qisada labaadna waxay tahay 1992 bishii afraad ayaanu tagnay Yaman duruus badan baa ka socotay markaska sheekhina sheekh muqbil hadi alwadici rahimahullahu ta'ala duruustaasi markaa socotay aan la kulannay waxaa ka mid ahaa nuzhatu nadar sheekh jazaa'iri abu cabdillaahi la odhan jiray ayaa akhrin jiray waxaa kaloo ka mid ahaa naxwaha qatru nada abu cabdillaahi qaasim sheekh la odhan jiray oo yemani akhrin jiray waxaa ka mid ahaa kitaabkan alusul min cilmi lusul usul min cilmi lusul waxaa akhrin jiray sheekh miithaaq la odhan jiray oo yemaniya weligii usul fiqh annagoon dhigan baanu xalqadaasi fadhiisanay awalu mara marka aad ba ayuu noogu adkaaday waxyaabaadka noogu adkaadeen waxaa ka mid ahaa ixtiraazaadka kharaja bihada kada kharaja bihada kada ayaa aad noogu adkaatay laakiin markii dambe maca alayaam cilmiga mar kastoo aad kusii dhex jirto fahamkaagu waasic buu sii noqonaya oo markii hore inaanad fahmi jirin ayaad fahmaysaa marka ardaydu labay u qaybsamaan kuwo adayga hore ka hor yimaada sabab ugu noqdo cilmiga barashadiisa inay ka hadhaan marka dee sidii unbuu cilmigu ugu adag yahay fahamkooduna sidii unbuu weli dayiq u yahay cidhiidhi u yahay iyo kuwo adayga ka hor yimi markay cilmiga bilaabaan u sabra kuwa waxaa ku dhaca waxa weeyaan tatawasaca madaarikuhum fahamkoodu inuu waasic noqdo bilowgii waxaanay fahmi jirin marka dambe inay waxa weeyaan ay fahmaan ardayda jaamacadda hadi jeeraale maadada usul fiqiga waan u dhigi jiray kitaabka lagu bilaabo ee usul fiqh alladhi laa yasacu alfaqiha jahluhu kitaabkaas ardayda dee usul fiqiga hore usoo dhigada jeeraale uu ku adkaada waxaanu socdaa dee ilaa dhammaadka jaamacadda waxaan jeeda kuliyadda shariica marka waxaan qiyaasi jiray maalintan ardayda u bilaabo iyo marka dambe dee dhexda ay marayaan ama dhammaadka farqiga u dhexeeya
waxay soo bixi jiray markaa farqi aada u weyn maalintaa kitaabkaasi la bilaabo arday fara badan baa aada ugu adkaan jiray oo fariir ka qaadi jiray marka dambena hadda xaggiisa hore waa xagga jilicsan weeye kitaabka xagga dambe masaa'isha adag ay ku yaalaan marka la gaadho qiyaaska iyo masaalikul cilla iyo qawaadixda iyo marka la gaadho waxaad arkaysaa ardaydii tacriifka usuul fiqigu ku adkaa ama tacriif ulxukmi iyo aqsaamta xukumka iyo waxyaabahaas oo masaa'isha markaa aadka u adag ee sacabkaa fahmaya baad arkaysa marka taladan usoo jeedina dalabatulcilmiga waxay tahay fanni kasta markaad bilaabayso mar hadduu wax kugu cusub yahay dee nooc min asucuuba ama adayga waad kala kulmaysaa laakiin laba midkoodun baad noqonaysaa inaad adaygaa u sabirto deetana uu kuu furmo iyo inaad sabri weydo oo dee cilmigi mid sidii un kugu adag kaa maqan haddaad siraa bilowna adayga weli waa ku hor yaallaawn ile mar kastoo aad bilaabaysa buu kugu cusub yahay waxyaaba markaa cilmiga dee jilciye waxaa ka mida in loo sabro oo lagu celceliyo kitaabka xataa mar qura aan la dhigane marar badan la dhigto intaba waxaa ka horeysa inaad ilaahay subxana watacaala aada barido oo rabbi subxana watacaala weydiisato inuu ku fahamsiiye cilmiga xifdigiisana rabbi subxana watacaala inuu kuu sahalo ikhlaaskana inaad ku dadaasho ilaahayna subxana watacaala inaad kaalmo weydiisato rabbina subxana watacaala inaad si dhaba oo xaqa aada u tala saarato juhdi iyo dadaal iyo xirsina inaad la timaado cilmiga la dhahdo marka usuul fiqigu waa cilmi muhim jiddan oo qofka taalibulcilmiga ahi kama maarmi karo cilmigani wuxuu asal ahaan mawduuciisa asliga ahi waa alaxkaam xukum muxuu yahay qaybaha xukumka ayuu ka hadlaa culimada qaarkoodna waxay dhahdaan alaxkaam waladilla xukumka iyo daliilkiisa hase ahaatee tawaabic buu leeyahy marka maca tawaabiciisa marka la ysku daro waxaynu odhan karnaa cilmigan waxaa asal waa afar arrimood alamru alawal waa alxukm alamru athaanina waa addaliil alamru athalithna waa addilaala alamru araabicna waa almustadilu ka wax daliishanaya abwaabtiisa oo dhami afartaa khaanadoodun bay kala gelaysaa afartaa layn bay ku kala faylaysaa ka ugu horeeya ee asalkana culimada badankooduna ay yidhahdaan waa mawduucu usuul fiqi waa xukumka oo dee soo arki doonto wuxuu ku bilaabmi doonaa marka usuul fiqiga la tacriifiyo bimufradayhi magac isagoo fannigan waana la qeexo markiiba waxaa la gudageli doonaa xukumka xukum waa maxay qaybaha xukumka inuu qaybsamo xukum takliifiya iyo xukum wadciya xukumka takliifiga qaybaha hoos yimaada alaxkaam alkhamsa waa waxa weeyaan alijaaba altaxriim annadb alkaraaha iyo alibaaxa afartaa iyo shantaa iyo dee mid walba siiqooyinka lagu gartay uu ku sugno kadibna waxaa loo geli doonaa alaxkaam alwadciya waxa la dhaha alaxkaam alwadciya waa maxay ma alfarqu bayna alaxkaam alwadciya waalaxkaam altakliifiya alaxkaam alwadciya qaybaha ay leedahay sida asharطu almaanicu asababu iyo kuwo kale waxa ku xigaa isaguna soo raacaya waa asaaska labaad oo ah addaliil axkaamtaasi maxaa horta daliilu noqda daliilka usuul fiqi ka hadlayaana daliil tafsiiliya maaha oo masaladan hiblaayo la idhaahdo aayaddana u daliila ama xadiiskan wuxuu ku barayaa usuul fiqigu war maxaa daliil noqdo horta adilat alaxkaam ma hiya aladila allati tathbutu biha alaxkaam buu ku baraya alkitaab waa daliilka koobaad adilada kaloo dham inaa u noqotay asalka u ah السنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كتاب كده أحكام بدن بهوس إيمانيس وقرآن نمدو بحي كسقناتا وحاوس إيمانيس ساس وكلا إن قرآن كوحان عربي هيني بكتشرا وحاوس إيمانيا نسخ يجيب هوس إيمانيا يا باس السنة والدليل كلابات
sunnada dee waxyaaba fara badan mustalaxaad ku aragteen baa iyadana kutubta usuul fiqigu ay sheegtaa marka daliilkaa sunna ay ka hadlayaan oo qaybihii sunnada iyo min xayثu naql ama min xayثu wusuuliha ilayna tawaatir iyo axaad inay u qaybsanto saas oo kale min xayثu daatuha sunna qawliya sunna ficliya sunna taqriiriya iyo in waxa weeyaan ay u qaybsanto waxaa ku xiga alijmaac alqiyaas adilo kale oo dee mukhtalaf ahna way jirtaa kutubta kan ka waaweyn lagu xuso amaba se lagu sheego adilada marka laga hadlayo waxyaabaha raaca waxaa ka mid a baabka loo yaqaano tacaarudka tacaarud yakun bayna aladila adilada ayuu dhex maraa haddii laba daliil ay u muuqato inay isku hor imanayaan maxaa la yeelaya deetana aljamcu annasku altarjiixu waxyaabahaasina halkaas iyaguna ay raacaan arrinka saddexaad ee asaaska waa cilmigan usuul fiqi waa maxay waa addilaala oo daliilku siduu masalada u tusiyaa macnaa qur-aankii waad haysaa xadiidkiina waad haysaa sidaad aayaddan xukum uga soo saari karta de waa inaad taqaano waxaa loo yaqaano wujuuhu dilaalaat mathalan amarkii nahyigii caamkii khaaskii muطlaqii muqayadkii waxaasoo dhan baa dilaalaadkana hoos imanaya oo hadduu amar ku soo arooro fi kitaab wasunna muxuu tusiya hadduu nahyi ku soo arooro muxuu tusiya caamku muxuu tusiyaa siiq ulcumuum waa maxay siiq ulamri siiq nahyi saasoo kale muطlaqu muxuu xukumku tusiya waa maxay muqayadku xukumku tusiya waa maxay waxa weeyaan waxaa loo yaqaano mutlaqa iyo muqayadka haddii ay ku soo arooraan tusaale ahaan fi daliili waaxid ama fi daliileyn oo mukhtalifayn munfasileyn aduu waxyaabahaasoo dhan baa dilaaladana lagaga hadla waana arrin aad iyo aad muhiim ah baabka u dambeeya ama asaaska u dambeeya waa almustadilu isna waxa hoos yimaada uu laba baab baa hoos yimaado abwaabta usuul fiqiga ka mid a alijtihaad qofka wax daliishanaya laba midkood weeye mustadilun binafsihi iyo mustadilun bigayrihi mid isagu awood u leh inuu aayadda si saxa u daliishado dee daliilkii garanaya wejhu dilaalana garanaya dabeetana daliilkaa xukum ka istimbaadi kara isaga laftiisu isagoo cid kale aan u marin waa mujtahidkii kaasi ijtihaadka iyo tacriifkiisa iyo shuruuddiisa iyo waxaasoo dhan baabkaasaa lagaga hadla ka labaadna waxa weeyaan almustadilu bigayrihi o isagoo awood uma lahaa inuu aayadda ama xadiidka isagoon cidna u marin xukum inuu kala soo baxo daliilka ma yaqaan ama daliilka wuu yaqaanaaye dilaalaadkii aynu sheegaynay baanu aqoon oo aqiimu salaata wuu garanaya waxaa laga yaabaa inuu maqlayna inay daliil u tahay salaadu inay waajib tahay laakiin haddii la idhahdo kayfa tadullu hadi alaayatu cala wujuubi salaa aayaddani say u tusisay salaaddu inay waajib tahay garan maayo oo dee taasi waxay u baahan tahay inuu garanayo waa aqiimu horta inay tahay amar mar labaadka inuu garanayo alamru inuu tusiyo iijaab waajibin wujuub lma'muur bihi waxaa la isamray inuu waajib yahay ilaa saarif la helo marka waa inuu yidhaahdo waa aqiimu waa ficlu amrin walamru yaqtadi alwujuub fasalaatu waajiba lakin isagu taa garan maayo aayadda u yaqaan ama aayadda maba yaqaanaba isagu aayadda u yaqaana laakiin wujuuhu dilaala ayaanu aqoon oo asaaskii hore dilaalada ku saabsanaa ayaa ka maqan marka muxuu samaynayaa dee cid kalunbuu u daba fadhiya waxaa ka mida kuwaasi dadka akhrista mutuunta fiqiga ah dee sheekhu u akhriyo u laqbeeyo u macneeyo laakiin aan garanayn masaladan kitaabka ku qoran minhaajka ku qoran ma kitaab kale oo cumdu saali ku qoran maxaa u daliila ama daliilkeedu wuu maqlay laakiin daliilkani siduu u tusinaya masaladan garan maayo taxliilka noocaasa ma samayn karo kaana muqalid baa la idhahdaa halkan waxaa lagaga hadlaa taqliidka marka afartaas ayaa usuul fiqhu gebigiisuba uu ku kooban yahay alxukmu addaliil addilaala iyo almustadil abwaabta usuul fiqhu kulluhaa afartaas ayay
ayay hoos tegaysaa ay ku kala faylaysaa usuul fiqiga ahamiyadiisa waxaa muujinaya dee arrinta aynu ishaaray oo waxaa ku xidhan horta ijtihaadkii baa ku xidhan waa macrifatu usuul fiqh wa min shuruud alijtihaad oo qof aan markaa usuul fiqi aan garanahayn dee xukum ma istinbaati karo arrinka faa'iida labaad ku jirtaa waxa weeye usuul fiqiga waa inuu qofku garto ama taysiir camaliyat alistinbaat darajadu ijtihaad bayaanu gaari laakiin qofku waa inuu aayadda ama xadiidka xukum kala soo bixi karo oo uu ka dheegan karo sidaasoo kale xataa dadka hadalkooda laftiisa waa lagu fahmaa qofka usuul fiqiga yaqaanaa wuxuu fahmayaa hadalkani ma caamba ma khaasba hadalkani ma hadal mutlaqaba mise qeyd buu wata taasina waxay qofka ka anfacaysaa waxa loo yaqaano siiqatul wasiya oo kale marka la joogo oo dee abwaabtii fiqiga ka mid a kitaab alwasiya iyo waqfiga iyo siiqul waqfi oo kale qofkani ma sidee buu wuxuu waqfiyey dardaarankiisu qaabkee buu u dhacay ma qaab mutlaqa ma qaab waxa weeyaan qaydan xataa hadalkan kale dadku ay ku hadlayaan ayaa qofku si saxa uu fahmi karaa macna saxana uu sheegi karaa laakiin qofkan usuul fiqi aan aqoon dee mutlaqii muqayd kala garan maayo hadalkii waxa weeyaan qeydka lahaa buu si mutlaqa isaga macnaynaya ama xukum uu uga ratibaya oo uga dhalinaya usuul fiqi waxa ku qoran waxa ku xidhan fahmu alqur'aan wasunna cala wajhi saxiix qur'aankii iyo sunnihii qofku inuu fahmo si saxa inuu fahmo lihada cilmigan barashadiisu waa fardu cayn calaa man raama alijtihaad qofkii doonaya inuu darajada ijtihaad gaadho fardulcayn buu ku yihi oo ijtihaadkii buu shardi u yahay waana fardu kifaaya calaa gayrihi ciddaan darajatu ijtihaad inay gaadho aan doonahayn waa fardu kifaaya bimacnaa cid cilmigan taqaana laabudda in ummadda laga dhex helo sida mujtahid in ummadda laga dhex helaaba ay faral u tahay fardu kifaaya ayaa cilmigan cid taqaana ummadda in laga dhex helaana ay tahay iyaduna fardu kifaaya ay tahay kitaabkan alusuul min cilmi alusuul kolley de waa mukhtasar loogu talagalay inuu barbilow u noqdo barashada cilmigan usuul fiqiga marka kolley shuruuxna wuu leeyahy lakin ta muhimka waxa weyaan matnigiisa in la itqaaniyo dalabatu cilmigu ay xoogga saaraan fahm wa itqaan hada almatn sharaxana wixii tawdiix dheeraada u baahda inay waxa weeyaan ula noqdaan marka shuruuxdiisa waxaa ka mid a sharaxa sheekha waxaa kaloo kamid kitaabkan taqriib alxusuul cala lataa'if alusul min cilmi alusul oo kolley inta badan kelmad kelmad uma sharaxaya laakiin waa sharax guud baa la odhan karaa waanuu fiican yahay sheekha ghazi ibn murshid ibn khalaf alcutaybi uu qoray sheekh sacd ashithri laftiisu sharax uu sharaxay ayaa jira sharax markaa wuxuu ahaa musajala kadibna la tafriiqiyey buu ahaa kolley shuruux kaloo fara badan oo mufaraqa ama musajalina way jirta laakiin shuruuxda ha isku badinin matniga xoogga saar wayakfiika sharxun aw sharxayn wixii kaa ishkaal gala waxa weeyaan aad ula noqoto taad xoogga saaraysana ha noqoto maadaama kitaabkani uu aasaaskii koobaad ee maadadan ama fannigan uu yahay matniga masaa-isha ku taalla inaad fahamto cilmiguna sidiisaba wuu koraayo xagga fahamka wuu koraa sayna hore u sheegnay xagga kutubta lafteeduna wuu koraa oo sigaarul kutub baa lagu bilaaba deetana saasaa loo socdaa laakiin adoo kitaabkii mukhtasarka ahaa maraya haddaad isku daydo inaad ogaato jamiic masaa'il hada alasl ama hada albaab masaa-ishiisoo dhan inaad ogaato haddaad isku daydo way kugu cuslaanaysa sida jaranjaradaasoo kale ta hoosaa fuulisteeda laga bilaabo kadibna kor baa loo socdaa marka barashada cilmiguna waa sidaasoo kale weye suu ibn cabdilbar raximah llahu tacaala culimadu markay mukhtasaraadkan qorayaan dee may awoodi waayin inay kitaab weyn qoraan oo dee sharax fara badan inay saaraan xadka ka baxsan laakiin waxaa loogu talagalay in cilmigani manaaqil iyo maraatib inuu noqdo marba waxa weeyaan martabo qofka la meeqaana oo munaasib ku ah inuu qofku kitaabkeeda dhigto kadibna ka ku xiga u gudbo oo cilmigu xagga xaasilinta dee uu iska daba yimaado
idinkuba deemika isku mid ma tihiin maalintii aad dowladda bilowdeen iyo maanta cilmigu iska daba imanaya ta kale muhiimka waxay tahay haynta matnigii waad dhigatay laakiin ma haysaa masaa'ishiisii ma haysaa waxa ku yaala tacriifaadkiisii ma haysaa axkaamtii ma haysaa muhiimka waa taas matnigii si fiican ma u akhrin kartaa taadkeeduna muhiimka waa taasina waxay ku imanaysaa bilmudaakara inaad kitaabka aad dhigatay dee halkaa aanad kaga hadhin ee aad muraajacayso muraajacaadka waxyaabaha sahlana waxaa ka mid a maadaama si musalsala aad fanniga u dhiganayso had iyo jeer ale cilmigu wuu isku noqnoqdaa dee adiga arkay naxwuhu wuu isku noqnoqonaya oo inta ajruumiye ku taala dee kitaab kastoo naxwaa oo ka sarreeya way ku taala laakiin masaa'il kaluu ku daraya iyo ziyaadatu sharxu tawdiix iyo masaa'il zaa'ida buu ku daraya markaad mutamimada dhiganayso ajruumigii baabkan mutamimada ku yaal laftiisa dib uga muraajacee dib ugaag waayo faa'iido kalena way ku jirtaayo horta isagii ilaawi mayso marka koowaad oo marka labaade wuxuu kuu soo khulaasaynaya ile khulaasa ku taala kitaabkaa yaray masaladii dee faraa badnayd ee kitaabkan kale ku taalay qatriga markaad dhiganayso mutamimadii lafteedana ku dul muraajacee marka kitaaba lagu dul muraajaceeya sidaasi ayaa cilmigu uu ku noolaanaya oo ilowgeed ilaabi lahaydna aad kaga baxsanaysa iminka caqiidadoo kale masaa'il badan bay nagu soo noqnoqonaysa kitaabkan hadda aynu dhignoo kale manduumada sulam usulka waynagii nidhi sidii kutubtii hore u sharixi mayno maadaama masaa'ilkan ay yihiin masaa'il hore inoo soo maray laakiin idinkaa laydinka rabaa masaladan inaad ula noqotaan kitaabkii hore oo hadday halaathatu lusuul inagu soo martayna halaathatu lusuulkii dib aad ugula noqoto hadday kitaabu tawxiid inagu soo martayna kitaabu tawxiidka dib ugula noqoto haddii alcaqiida alwaasitiya inagu soo martayna alcaqiida alwaasitiyana dib ugula noqoto waa muhim kitaabkii hore laftiisa ayay taasi muraajaco noqonaysa waxay noqonaysaa rabt bayna alkitaab alxaali walkitaab asaabiq kitaabka hadda aad dhiganayso iyo kitaabkii hore isugu kaa xidhaysa cilmiguna markuu qaabka noocaasa isugu xidhmo ayuu qofka ku raasukhaya oo qofkuu noqonaya muxasil lilcilmi xaqiiqatan mid si dhaba cilmigii waxa weeyaan u xaasiliyey isla markaana dee xifdiyey oo yumkinuhu istixdaaru lmasaa'ili mataa shaa suurtagal ay u tahay masaa'ilka markuu doono inuu dee sheego ama uu dib waxa weeyaan u xusuusto aad iyo aad ba arrinka noocaasi muhim u yahay laakiin haddii kitaabkii inta la dhigto halkaa lagu dhaafo dib weligaa loogu noqon mar walba kitaabka ku cusub buu noqonaya mar walo aad tidhaahdo dhig ama akhrina waxaad u baahanaysaa inaad juhdi kii beriga hore aad gelisay mid lamid inaad geliso marka si taasi ay kaaga fududaato oo dee mar walba kitaab waliba juhdi cusub oo bilow aanu kaaga baahan oo haddaad u baahato dee muraajaco yar iyo dulmarisuna arrinkaagu noqo dee imtixaan ku gelaysiyo haddaad dhigaysiyo haddii kalaba waxa weeyaan cilmiga gacanta ku hay cilmigu waa gacan ku hayn xayaatu lcilmi bilmudaakara ayuu alimaamu zuhri raximah allahu tacala cilmigu wuxuu ku noolaadaa muraajacada iyo subcinta ayuu cilmigu waxa weeyaan ku noolaadaa haddii kale wuu iska dhimanayaa insha allahu tacaala xiisada soo socota ayaynu kitaabka toos u gudageli doonaa aynu bilaabi doonaa والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما